kanaalka Aljazeera ayaa goordhow shaaciyay in ay shahiiday wariyihii Aljazeera ee daanta galbeed Shireen Abu Caaqil kadib markii rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil ay dhaawac ahaan u soo gaaray ay u geeriyootay iyada oo tabinaysay xoog ay ku galeen ciidamada Israa'iil xerada Janiin. subaxnimadani arbacada wariyaha Aljazeera Shireen Abu Caaqil ayaa waxaa la tilmaamay in ay u geeriyootay rasaas ay fureen ciidamada Yuhuudda, waxaana la tilmaamayaa ciidamadu in ay kala ceerinayeen kuwo dibadbaxyo ka dhigayay magaalada Janiin ee daanta galbeed. wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa waxa ay shaacisay in ay shahiiday suxufiyadaasi lagu magacaabay Shireen Abu Caaqil, wariyaha kanaalka Aljazeera ee ka soo waramaysay waqooyiga daanta galbeed. wasaaradda war kooban oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay u geeriyootay dhaawacii ka soo gaaray rasaasta ay fureen ciidamada Israa'iil oo iyagu si xooga ku galay magaaladaasi Janiin. ciidamada Israa'iil ayaa si xooga ku galay magaalada waxaana ay go'doomiyeen guri ku yaalay halkaasi oo ay doonayeen in ay kala soo baxaan muwaadin Falastiini ah. waxaa ka dilaacay halkaasi rabshado gacan ka hadal ah taa oo sababtay ayaa la yidhi in tobaniyo ka mid ah Falastiiniyiin hubeysan ay rasaas ay hubiyaan ciidamadii kale ee Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa rasaastaasi waxa ay ku fureen dadkii dibadbaxyada dhigayay iyo sidoo kale wariyaashii Aljazeera ee iyagu warka tabinayay. ciidamada Israa'iil waxa ay rasaasta si toos ah ugu tuureen ayaa la yidhi dhinaca Shireen, taa oo sidatay ayaa la yidhi dariiska lagu yaqaano suxufiyiinta ay inta kale dadka ay kaga soocan yihiin marka wararka tooska la tabinayo. Shireen Abu Caaqil ayaa waxa ay ka mid ahayd wariyaashii ugu horeeyay ee ku biiray kanaalka Aljazeera, waxaana ay ku biirtay kanaalka 1997 waa sanad kadib markii Aljazeera albaabada loo furay. Aljazeera markii ay ku biirtay kadib waxa ay ka howlgashay sidoo kale idaacadda Falastiin iyo kanaalka Cumaan. rubuc qarni oo ay ka shaqeynaysay ayaa la yidhi kanaalka Aljazeera iyo sidoo kale khatarta dagaalada iyo weerarada Yuhuuddu ay ku hayso shacabka Falastiin waxaa dhowr jeer loo aqoonsaday in ay tahay geesiyad ka soo waranta mid ka mid ah dhulalka ugu khatarta badan ee caalamka. Shireen Abu Caaqil waxa ay dhalatay 1971 waxaana ay ku dhalatay magaalada Qudus. waxa ay darajada bachelorka ay ka haysataa saxaafadda iyo warbaahinta iyada oo ka baxday jaamacadda Yarmouk ee ku taala dalka Jordan. Abu Caaqil ayaa waxa ay dhowr jeer ay si kulul ay u eedeysay Israa'iil iyada oo dhowr muuqaal ka soo duubtay meelaha sida xoog ay u beegsanayaan ciidamada Israa'iil oo ay ku sugan yihiin shacabka reer Falastiin.